السلام عليكم. موضوعنا maanta waxaan ku soo qaadan doonaa barnaamijkeenii Ramadaanka qaybtiisii labaad. Soonka waxaa la iska reebay cunitaanka iyo cabitaanka isu taga ragga iyo dumarka isqaba laga soo bilaabo fajarka ilaa ay qoraxda ka dhacdo, siduu Alle subxaanahu wa tacaala inoogu sheegay quraankiisa. حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. شروطها واجبك كو qaangaarnimo. qof aan qaangaar ahayn laguma laha soon da'da uu rabo ha jiro, inkastoo ay fiican tahay in lagu tababaro carruurta inta ay yaryar yihiin si ay tababar u helaan. 2. Musaafir. qofka musaafirka ah waxaa u bannaan inuu afuro kadibna uu gadaal ka gudo. 3. Awoodis. qofka inuu awoodo soonka. qofka waayeelka ah iyo carruurta soon laguma laha. qofku waa inuu u adkaysan karo gaajada iyo haraadka soonka. Sunnooyinka soonka. 1. In afurka la dedejiyo haddii uu maqrib soo galo ama maqrib la gaaro. 2. In la suxuurto dibna loo dhigo suxuurta haddii uusan qofka ka baqayn in fajarka ku dhasho. 3. In loo istaago acmaasha sida taraawiixda iyo tahajjudka. 4. Inuu qofku ku afuro 3 xabbo oo timir ah iyo biyo. waad ku mahadsantahay daawashada aad daawatay muuqaalkan. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka, subscribe saar, gambaleelkana furo si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee daawada muuqaalada aanu halkaan soo gelino. mahadsanid.